wakiilada saxaafadda waxaa ka codsanaya dadka fariisan waxaan codsanaynaa dadka waxaan qaadanay oo dastuurkaas ku qoran system federaal sidaan hor u sheegay ha lagu kala fikrad duwanaado laakiin guddoomiyow asagaa ah sharcigii waddanka asagaan dhaqan gelinay asagaana lagu doortay federaal ma jiro ayadana nama qabato federaalku ma fiicna waa ka doodaynaa federaalku waa ku fududaanay waa ka doodaynaa federaalku nama anfaco waa ka doodaynaa laakiin federaal ma jiro intaan meesha fadhida oo prime ministerku hadda noogu weyn yahay macnaheedu waxa waaye sharci darraan ku fadhinaa waxaan noo tahay shaqooyin badan oo aad adigu ugu horeyso maadaama aad tahay yaraankii dowlad goboleedyada waxaa muhiim ah markaa inaan annaguna ku garab istaagno oo aan kaala shaqayno dib u heshiisiin kaala shaqayno sida dalkoo dhan ugu baahan yahay iscafis kalsooni abuuris iyo isku haynta dhammaan bulshooyinka ku dhaqan deegaanka kala duwan ee Hirshabeelle waa inaan sidoo kale adiga iyo dowlad goboleedyada kale oo dhan idinkala shaqaynaa soo dhisidda hay-adaha dowlad goboleedyada si nidaamka federaaliga hoos loogu daadejiyo sugidda amniga iyo xasilinta deegaanada oo dhan maadaama aan Hirshabeelle joogno laakiin mudana madaxweyne dowladda federaalka way kaala shaqayn doontaa This ceremony is taking place as we are still in mourning after the terrible events of the 14th of October. Every man, every woman, every Somali has been affected. But the response has been amazing. It has been the most extraordinary act of solidarity between the local people, government, business, civil society, the international community. It has been very impressive. The deaths of those people must not be in vain. laakiin 14kii bishii Oktoobar waxaan ka baranay waxyaabo badan waxaan ka baranay fariin ay noo soo direen shabaabku ahayd fariintii ugu dambeysay fariintaasoo ahayd inaanay u naxayn hooyo iyo aabbo carruur iyo waayeel qof lacag haysta iyo midaan haysan qof wax aqoon leh iyo midaan aqoon lahayn rag iyo dumar qof caafimaad qaba iyo qof jira waxay noo soo direen fariin ah Soomaaliyay waxaan go'aan ku gaarnay inaan idin baabi'ino dhulkana idinka tirtirno sidaas daraadeed waxaan soo dhaweynayaa khudbadii madaxdii iga horeysay ee ku baaqday inaan u soo istaagno hal mid oo keliya inaanay nagu dhicin mar dambe wax la mid ah 14kii Oktoobar haddii la yiraahdo The international community wants to continue supporting Somalia to tackle all these challenges, to invest in security, to build institutions, to generate revenue, to provide services, and so on. But the key to progress is not foreigners, it is Somalis. It is Somali leadership, it is Somali ownership, and it is Somalis' willingness to resolve their problems and work on behalf of all the people.